meeshan ciidan baa macwisley ahaa ragaa waday oo odayaal u ahay ciidanka dawladana ragaa waday oo odayaal u ahay hadda ka hor marba waxaan dhageysanahay de meesha annaga taliyaala noo jooga ayuu yiri Ibraahim Muxudiin xasanna kuma jiro ayuu yiri ana waxaan isleeyahay horta wixii meesha ka dhacay isla xisaabtan u baahan yihiin waa in laga la xisaabtamo marka cidii meesha la geeyay qolo walba oo mas'uuliyadda madaxweynaha ka soo qaadatay cidii ay uga wakiilka ahayd shaqadii ay wakiilka ka ahayd in lagu la xisaabtamo oo wax laga weydiiyo aniga laakiin shakhsiyan markaan iska hadlo si temporary ahaan 7 bilood ku joogo isdabaran ku joogo anoo marka askari ah oo shaqo kale ka badan aan lahayn inaan ciidan 100 nin iyo ka badan aan aniga aan meesha ku hayo iyo gaadiidkood iyo shidaalkood oo aan intaas aan aniga aan cid kale oo wax ila dabaraysa ay jirin waxaan is leeyahay haddaan ku waayo iyo isxilqaamkii iyo dadaalkii markii xilka la iga qaada kadib aan 7 bilood aan ka sii shaqeynayo meesha haddaan ku waayo wanaag aan ku waayo ama ay dhasho maaragtay hadallo kale ay dhasho waa inaan qofkii qalad kala hay iyo dadkii qalad kala hay aan la fiirin ee meelo kale lagu lugo oo waqtigu dadka uga lumo waxa ciidanka meesha ka soo saaray ballan xumo iyo ballamo la isaga baxay iyo moraal xumo ka dhalatay ballan xumada la isaga baxay haddii qof walba ay ballanta uu fuliyo oo qaaday uu fuliyo oo qof walba mas'uuliyadda meesha ka leeyahay uu ka xagsado 300 oo wiilo ku meeraysanaysa caadi camaare iyo inta u dhaxeeya ilaa iyo mudug iyo galgudud looga ma soo tageen meesha mana jirin cadow hadda meesha looga soo cararo markuu taqaala hadlo ma jirin waa loo soo baneeyay aag waxa u soo baneeyay ciidankii disbraal noqday oo ballan kasta oo la galayay la isaga baxay oo telefoonada la isku dhageysanayay ma ahan marka in dalkan waa la wada leeyahay nacfigiisana dadka inta badan hotelada jiifaa qaata inay haddana dadka telefoonada ku dhageystaan oo ballanta uga baxaan oo aysan dhig talaq u siin ay dadna hadhow aad u tiiriyaan mas'uuliyaddan ayagu dawladda ka soo qaataan wax badan aan waxaan dhahnay war meesha hal yimaado war meesha wax ka jira hal arko war waxa runta hal isaga sheego yaa been la isku sheego anay sarkaal ah oo sarkaal dawladeed aan ahay waxa jirtay mana jirin sarkaal hadda darajo ahaan iga sareeyo oo meesha joogay 7 bilood waxaan ku dul qaadanay hoos tagay macwisley markaas shidaalka iyo raashinka iyo wax walba horteeda ku qaybsanayeen adna waa ogeed waa dali joogta meesha maada ka maqnay isdabaran ku jooga aniga dadkii marka noocaas u shaqeynayay oo rabay in maaragtay intaan anigu xumaado oo qalbi jabo oo moraal jabo inaan meesha ka soo tago haddaan meesha ka soo tagay inay xajiyaan la rab oo ay adkeeyaan la rab ayaga yaqaan danta kala hayeen aniga cid aan taa kula kaysta ma jirto hadday talis xoog tahay iyo haddii siyaasiyiin tahay midda qabiilka hadday tahay iyo hadday talis xoog tahay midna qof aniga taa kula aan kaysta ma jirto meeshana waa jooga geed fadhi aan u ahay waxa la xaqirayay waliba inaan meesha geed fadhi jooga oo aan dadka isku celinaya inaan ahay la xaqiray marka waxyaabo dambiyaal ah oo wax la isku dayay aan meesha ka abuurma ilaa ciidamo fara badan meesha la isku keenay isku dhacyo yar yar baa ka imaanayay qabiiladii iyo dadkii ciidamadii militariga ahay oo meesha la keenay qaar kamid ah isku dhacay in aniga la isaariya la isku dayay oo la yiraahdo jaamiciya ciidankaas la diriray waana la wada ogyahay inaan la diririn oo aan anigu dagaal la gelin oo aan xataa xabaddu intay socoto dhan aan xataa kala celintoodii isriyaan lagu eedin aan ka fadhiyay isbitaalka magaalada oon gadaal uga baxay aniga ciidankii ayadoo ay noocaas tahay oo dhibaatadu saas u dhacday waxa la yiri jaamiciya ayaa la kulahay waxa weeye marka intaas oo dhan barabagaanday ahay musuq oo meesha u jooga hebel oo meesha u jooga waxyaabo badan oo aan sax ahayn oo aflagaadooyina xataa waxa la gaarsiiyay in heer la yiraahdo jaamici in la barabagaandeeyo la abuuro la yiraahdo jaamici waa al-shabaab waad ogtahay adiga oo markii dambana la ogaaday in dad ay abaabulayaan waxyaabo kale iyo siyaasad kale wata meeshaan marka xilmo oo la kala ciirsanayay shabaabkaas la iska celinayay cadawgaas la iska celinayay dad waxay u qaateen inaan xil ka ciirsanayo oo aniga haddaan joogo meesha xilal ayagu ay leeyihiin in aan u qaadanayo markaas waxay bilaabeen in aniga barbagaanaan oo ay mar walba ay aflagaadeen anoo dhibana ahay marka oo ciidankii culayskiisii iyo gaadiidkii culayskiisii iyo anigoo 2 sano iyo 2 bilood reerigii ilmigii aan tagin intaas anoo ku dhibanaa oo duur kaliya ku jiray oo shaqadeedii iyo camalkayga duurkaas ay noqotay al-shabaab la dagaalankiisa ayaa abaalmarinteedu waxay noqotay in aniga la barbagaano in la aflagaadeeyo in la dulmiyo waxaan aaminsanahay dawladda juhdi fara badan ka galay dadka shacabka iyo qabiilkana juhdi fara badan meesha ka galay waa in la raadiyaa oo la baaraa sababta meesha looga soo tagay ilaa xabad kama dhicin aniga ayadoo meesha fiiri aniga anoo og canaabta idul saaran
qof kasta markii telefoonada laga qabaa qof walba maaseedan u diray aan leeyahay anigu waa daalay 7 bilood ayaan hadda camaaro kaliya iyo caad u dhaxeeya muddadii dheereed oo aan horay aan duurka ugu jiray taariikh qayb xar dheere waa ii dheeri 2 sano iyo 2 bilood duur ku jira waa daalay waxaan rabaa inaan saraakiishii iga wada dambeeyay oo 4 bilood gudaheed ama 2 bilood gudaheed meesha timidna dhammaantood waa iska tagay way carareen ana 2 sano iyo 2 bilood jooga inta baahi iyo dhibaato ay leeyihiin waxa ii dheeriyeed midda ciidanka aan waday marka waan la hadlay nin kasta markuu maaseedka telefoonka iga qabad diiday oo uu og yahay waxaan kula hadlaa inay gar yihiin uusan hadda diyaarna u hayn garti wax ka qaba ama laga yaabo qaarkood inay waxba ka qaban karin ay telefoonadii ugu dhageysteenna waxaan go'aansaday inaan ciidan cusubna uu yimid markaas oo aan muddo bilaa waliba la si fiican aan ula habeeyay oo hal urur oo dhameystiran oo ciidankii ilaala qaran ay meesha yimaadeen 450 askari anigana waxaan watay wax adigu dhowr baabuur tiknika oo anigu isku wardiinay ahaayeen waxaan u arkay inaan markaan ay tahay markii aan xoogaa cidihii soo fiirin lahaa ayaan u arkay dhammaantoodna waa la hadlay qof ii soo jawaabana ma jirin nimankii